Hooyo Siham Nuur Maxamed waa hooyo haysata 2 caruur ah oo agoon ah. Waxay nolosha iyo waayu ay badeen in ay ka shaqeyso shaqo naadir ay tahay in la arko iyadoo ay qabanayso qof dumar ah oo waliba hooyo ah. Waxay kabaha ku baalashtaa wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo waliba xambaarsan caruurta agoonta ah ee ay dhashay. Ano Siham Nuur Maxamed Faarax waxa ka shaqeynaa waa arkaysiin kawa baalasha waxa ka biilaa ilmo qoys ilmaana ka biilaa ilmo kale abay walahan waa qalanahay kan iyo gabar kale oo qale oo gabar ka yar Salma la dhaho kana Salmaan Allah waxa uu qasbana bukaan qalan oo cunuga uu xariir laba cunuga uu waxba islaam uu xariiro oo qof shaqo ku siiyay. Hooyo Siham ayaa sidoo kale noo sheegtay in shaqadan casaynimada ay ku qasabtay markii habeen saq dhexe laga soo saaray hoygii ay jaarka ugu jirtay xilli ay umul ahayda. Waxa uu qasbanay cunugan waa lagu soo qalay gabar ka yarna waa lagu soo qalay laba caruur waxba ma isdhaamaan waxay isdhaamaan malaan bukaan qalanahay ma qof shaqada dheel ku siinaysa baa malaan oo sababta cunugan ku xariiro guri shaqo ma helayso maqaaxiga ka shaqeynaysa ma helayso gacmaha ma horsalay ma fariiso ma su'aash marka shaqada bilaabay aan ku fikray habeen 6 saac la baan soo bixiyay haja ijaarka dhiibinayna la bax waxa sameeyay ka suwaa wallahi bilaa oo qurbeysan oo yaaban qalbiga ku soo dhacayna shaqada bilaaw muddo 6 bilood ah ay shaqadan ku guda jirtaa Siham oo ay ka bisha nolosha caruurta ay hooyada u tahay balse aabahood oo Allah oofsaday ayada ay masruufkeedu saaran yahay waxa ayna ku bisha waxa ay ka soo dhiciso ganacsigan yarka ah ee baalashka. Hooyo Siham ayaa waxaa jira caqabado ay kala kulanto qaar ka mid ah bulshada. Haddaba waa maxay caqabadahaasi? marmar arkaas oo soo firsano u biro baxay oo qofku isleeyahay gabar wax xaseenaysi maxaa way dhaayo qaar oo mashquulaan qaarna dhiirgelin oo ku siinayaan qaarna qalbiga ka jibinayaan laan waxas bareeg mu qof waxay ku shaqeynaysaa xaalad aad u adag oo qof walba oo arka ama daawada oo ka damqanayo. waxa ay halkan u yaala maradan cadka ah ama karintan yar oo laamiga bartankiisa u yaala sidoo kale cunuga yarka ah ee aad arkaysaan ayaa ay ku shaqeynaysaa soo qalbiyaale lana alaas dhima wuxuu ilaahay soo qabsanaya wixii qarash oo meel yar oo meherig ku furan lahay ya qarash isla meel yar oo meherig ku furan lahay furaa wasiga oo aagan emershan isgeegan ilaw Su'aal Abdi Aziz Daahir telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho.